shicibka Soomaaliyeed meel kastoo dunida joogtaanba waan idin soo salaamaya maanta halkan fariin waxaan uga dirayaa gudoomiyaha golaha kharaabka duqaha Somaliland Saleyman Nikaleeda Saleyman Gal madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo dictator-ka haysta Djibouti Master Gelle Saleymano waxa ka muuqday waa xumaan iyo cuqdad iyo caabuq aad reer u qabto baa ka muuqda kama muuqato inaad tahay gudoomiye guurti marka wax la kordhinayo dariiqa la marayo waxay leedahay procedure la maro wax kasto la sameynayaba sharci dadka ka dhaxeeyay oo sameysteen baa jira natural disaster marka uu dhaco natural disaster haddii uu dhaco amba uu dhaco dagaal dhaco iyo wixii lamida waa la kordhin karaa oo waxba lagu dari karaa laakiin wax kale oo lagu kordhin karo meesha yaali ma jiro oo ahayn xumaan iyo cuqdad iyo caabuq reer loo qabo waliba yaana afka ka dhowrana cuqdad aad u qabto garxajis weeye adigu personally Soomaalidu waxay tiraahdaa gabadh ureysatay tu hore ayay ku badbaaday dagaalkii 94kii adiga ayaa hogaaminayay burco adiga dagaalka gayo lacag ku qaatay dhaqaale ku qaatay inta dhimatay kumaankum Somaliland ayaa xabaal ku galay reer baa la isku tagay oo la isku soo urursado dagaal lagu qaaday adigana hogaaminayay dadkii way dhinteen adigana ka nool maantana tii oo kale ayaad wadaa oo muuqata oo anaga naga saarnayn la qabaar calayha wax naga saaran daahma jiro siyaasadan maanta isticmaalaysana waa political prostitute waxa la yiraahdo amba ka dhilaysiga siyaasadda qofka hadii lacag la siiyo wixii lacagta lagu siiyay waa inuu fuliyaa lacag waxaad ku qaadatay in labada xusbi amba reerkaasi la baabiyo oo inay soo bixin maadaama ay qarka u saaran yihiin oo ay soo muuqdaan waxa loo arkay dhibaato mar dhow iman doonta ayay u arkayaan Somaliland haddii ayagu qabsadaan dad baa warkaya inay dhibaato tahay sidaa daraadeed baa adiga lagu isticmaalay political prostitute waxa la yiraahdo lacag baad ku qaadatay inaad waxa samayso fidmad baad de markaa samaysay tii hore de waad ku badbaaday laakiin tani inaanad ku badbaadayn baa muuqata maanta kuma badbaadaysid dagaalkii hore gashay iyo fidmadii hore abuurtay haddii adigu aad ka badbaaday oo kumaankum xabaal ku galeen maanta adigana ka badbaadayn alfitmatu ashadda min qatl fidmadu waxay ka xun tahay dilka marka fidmad baad ummadii Somaliland ee isdeganayd ee walaalaha ahayd ku soo dhex turtay iyo qabyaalad iyo xiqdi iyo xumaan ayaa dhex keentay adiga oo 90 jira oo jooga cimrigii bili aadanka waa daaftay laakiin waxa taagan tahay cimrigii dinosaurska waxa la yiraahdo hawayaankii la oran jiray ayaa taagan tahay 5 sanaad kordhisatana inaad noolaanayso iyo in kale war kama haysid naftaadii baad been u sheegtay ilaahayna been baad u sheegtay marka kooxda reerkan aad ka hor timiday lama celin karayo meeshii laga celinayo way soo dhaafeen alamtara way soo dhaafeen procedure sharcigii bay soo mareen sharcigii bayna madaxweyne ku noqonayaan istab la hor dhiga karo amba isbaara loo dhigan karo ma jirto horta taa waa inay xaqiiqsataa inaana isbaara loo dhigan karin oo soo dhaafeen isbaarooyinkii oo dhan way soo dhaafeen oo hadda looma dhigan karayo marka lacagtaad qaadatayna waa qalad inaad kordhisana wax aqbali kara ma iyaguna ka aqbali ma ilaahayna aqbali ma ummaduna aqbali mayso dad sharcigoodii u dhan yahay oo doonaya inay madax noqdaan reer ahaan in lagu celiyo kursiga loogu diido wax aqbali kara maaha cid aqbalaysay ma jirto taa caruuro loo sheeg adiguna fidmad baad ka shaqaysay adoo 90 jira markii koowaad maahina waa markii labaad ee waxa gasho markana waa markaad adigu ku soconaysaan u maleynaya ta kale madaxweyne Muuse Bihi waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Bihi waxaanan suuragal ahayn baad rabtaa inaad ka dhaadhiciso dadka oo lacag ku meel mariso Somaliland adiga ayaa kala qaybiyay Somaliland adaa qabiilka dhex keenay adiga dadkan isku diray adiga dhibaateeyay dalkan waxaad ku soo kordhisay oo qabyaalad iyo xiqdi iyo xumaan iyo kala qaybitaan iyo isku diritaan ahayn ma jiro si joogitaankaaguna dhibaato buu keenayo waa disaster inaad si joogto inay dadku walaaloobaan oo isku soo dhawaadaan waxa la qaatay adiga oo ka taga waayo dhaqaale urursi baad ahayd dhaqaalihiina intii aad heli kartay waadash
talaqalada ayaa haysataa waxaad ku dayanaysaa dictatorkan Jabuuti haysta Ismaaciil Cumar Geele ayaad ku dayanaysaa Ismaaciil Cumar Geele dadkiisu waa mayitiin waa dad dhintay oona hadlayn oo sida la doono loo isticmaali karayo laakiin Somaliland dadku wali way nool yihiin oo waxaan Jabuuti ka dhacay waxay aqbali karaan maaha anad ku samayn karta maaha marka waa siyaasad qaldan Jabuuti waxa la haystaa half a century waa nus qarni waxa madaxweyne loo yahay waxa la wixii dalka lahaana dad kale lagu wareejiyay iminkana isagu uu bagaboobayo islaam baa haysata islaantii iyadoo nool quraanku ku soo degay xamaalatal xadab ayaa meesha haysata iyadaana dhibaatadan ku galinayso qabyaaladani waxaan kula soo galaysa way qabyaalada Jabuuti bay qabyaalada ku wada iyalkeedii baa dalkii boobay iyo kuwii ay qabeen ee la yimaadeen dalkooda dad Soomaali baan ahayn midna Brazilian bay wadataa dad bay ka modern slavery bay ka furatay boorka Jabuuti dad baa shaqeeya oo contract haysan oo mishaar helin oo markii doonaan loo yeero oo xaq lahayn oo xuquuq lahayn oo sidii la doono loo isticmaalo oo markay cadhowtana qaar loo soo qabto dilaan waa Brazilian ka wadata tu kalena gaal madow ay wadataa oo Cote d'Ivoire ayaa wadataayo wadankii oo dhan buu wada qaatay hantidii qaranka oo dhan isaga haysta diyaaradii aniga adeerkay Xasan Guuleed wuxuu ka dhigtay hotel oo South Africa u taala waxa la wixii guri Jabuuti dadka shicibku lahaayeen isaga haysta markuu cadhoodana mid Ciise loo keenay uu dilaa si ay cadhadu uga baabaado sidii gabadhii Qadaafi u dhalay ee la oran jiray Caasha Qadaafi waliba xuquuqul insaanka taqaan ayaa dadka dili jirtay markay cadhood oo guba jirtay marka fikirka halka ka imanaya Jabuuti nagas doorka waa fikir qaldan garxajisna walaal baa tihiin idinka walaalo isaaq isku ah waxba yaan lagu soo isticmaalay Ismaaciil Cumar Geele tu horena uu sameeyay markii doorashadaadina lacag fara badan buu ku bixiyay horeerka ku baabiinayo for no reason apology baan ka bixinayaa anigu caaqilkiisina waan ahay in adeerkii laxmiyana waan ahay laakiin ma ogolay waxaan u samaynayo annaga fireback bay noq iyo dadkayga u keenaysa dadkaygii baa qaawano bila iskuulo bila dhakhtar oo meel cidla fadhiya gaarisa adiga ba ogiyo ceelgaal oo cidlada ku dhala marka ninkani nin tala dad wax taraya maaha ninka wax weydiinayso kabihiisa la eega Ismaaciil Cumar Geele kabihiisa eeg dadkiisa eeg aniga caaqilkiisa in adeerkii aniga dhageyso dadkaaga ha isku dirin yaana lagu dirin reerka garxajis leeyahay wax ka xiga ma jirto yana ku soo urid wareerkii dalkana xoreeyay waxa la wixii haliyay Soomaali ay lahayd iyaga ayay ahayn Somaliland ay lahayd ee dagaalkii galay iyaga ahaayeen maantana iyagan cadaadinaya cidna ka yeelamayso de kuwii shalay toole dagaalamay baa joogo cid ka aqbalay mayso waad ceebeynaysaa dhaqaale wixii dalkan u baahnaa waad qaadatay position wixii u baahnaa familkaaga ka dhigtay tabta Ismaaciil Cumar Geele oo kalun baad samaysay iminkana waan ku sii darsanaya xusbiyada sharcigaana waan baabiinaya oo kuwa kale soo saaraya oo kuwa kale damasuug baad siinaysaa kuwa kale meesha soo taagan xusbiga la noo furay halkay tagayaan idin way arkayaan ucud iyo wadani waxa haysta dhibaatada lagu hayo oo waliba reer ahaan loogu hayo qabiil ahaan loogu hayo uqdad loogu hayo dagaalkii 94 baa la soo celinaysa dhibaatadii 94kii uu hogaaminayay odagani 90 jirka asaasaqa tiiba dib u soo celinaysa arinkaas wax shaqeynaya maaha iyaguna haday ka yeelaan habeenna ma jirin dad noolna maaha haday ka aqbalaan 2 sanood kordhisato iyo doorashada waqtigeedii dhaafso maalin haday ka yeelaan daafiso iyagaana nooleen annaguna xusbigaasan ku jirnaa soo iftiimay kaasan ka midnaay kuwaasaan taageersanahay wixii xaq ku socdaan taageersanahay wixii dadkooda u shaqeynayaan taageersanahay wixii shicibka iyo dadka iyo calanka iyo ciida iyo inta aad maamushaan madaxda ka tiin inta u shaqeynaysa ee jecel ban annaguna raacsanahay shicibka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliland aad iyo aad baan idin salaamaya fitmad baa ka bilaabantay Soomaaliland wada aragtaan 90 jir fitmada uu abuurayo qabrigii buu dhinaciisa yaala fitmad buu abuuray fitmatu ashad min qatl xisaab qalad ayuu isku dhiftay isaga iyo Muusabixi iyo Ismaaciil Cumar Geele xisaab qalad ay sameeyeen miscalculation abdo qalad xisaab ma dhacayso waxaan aad calculate gareysana waa falso wax jirana maaha xusbiyadaas way soo baxayaan doorashadana way galayaan way kale loo marayaa ma jirto gabadh haday uuraysato waa inay dhasho dariiq kale la maray ma jirto no other way la mari karaa
وإن دور شذا لقالوا صدح يطبنك بش الصوص عطا ولا قليا كوبي عبا تاسا بيك بعد معانا أدبان دي السلامية